waa xog baaris kooban oo ku saabsan arrimaha iyo su'aalaha waaweyn ee ku gadaaban gurmadkii dhaqaalaha shacabka Puntland oo ay u aruuriyeen wadooyinka gobolka go'doonsan ee Gardafuo halka ay ku baxday iyo waxyaabaha keenaystuunka soo shacbaxay 24 saac ee la soo dhaafay. xog baarista oo ah mid kooban waxay dul istaagi doontaa dhacdooyinka muuqda ilaa hadda kuwa qarsoon ee aan weli loo haynin cidda ka dambaysa iyo isqabashooyinka qarsoon. roob saacada dheer da'ayay ayaa kalifay bishii November ee sanadkiina soo dhaafay ee 2019 inay gebi ahaanba meesha ka baxaan wadooyinka awalba ciriiriga lagu geli jiray ee gobolka Gardafuo ee Puntland. Gardafuo waxay qayb ka ahayd gobolka Bari ka hor intii ay loo kala jarin Karkaar, Gardafuo iyo Bari. 25 November ee isla sanadkaas wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash waxaa lagu magacaabay guddiga gurmadka degdega ah ee wax ka qabashada xaaladda gobolka Gardafuo. guddigan ayaa ka koobnaa 7 xubnood oo kala ah wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka ee Puntland Axmed Bashiir Muuse, wasiirka kalluumaysiga Faarax Maxamuud Xawaash, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdiweli Mire Xirsi, 2 xildhibaan oo kala ah Cabdulaahi Yuusuf Muuse iyo Muuse Siciid Xasan, Sheekh Fuaad Maxamuud Noor oo aan ogaanay inuu ka cududaartay qayb noqoshada guddiga markii dambena u xubsiibtay dhinaca guddiga culimada iyo sidoo kale Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay oo hore u soo noqday gudoomiye gobol iyo dhaqaaqay arrimaha samafalka. guddigu waxay markiiba ka bilaabeen howlahooda shaqo magaalada Boosaaso. waxay qaarkood wariyaasha u kaxeeyeen gobolka Gardafuo si ay indhaha dadka loogu soo jeediyo marxaladihii taagnaa ee gobolka. waxayna kadib bilaabeen inay dhaqaale ka aruuriyaan shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan kan Puntland. 7 xubnood ee uu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxay markiiba ka fureen shirkadaha isgaarsiinta iyo waliba sidoo kale kuwa xawaaladaha ee bangiyada akoomo xisaabeed ay dadku lacag ku soo dirayeen kuwaas oo aan lahayn tixraac rasmi ah marka loo eego marxaladaha xisaabaadka. xisaab ay wadajir u maamulayeen 3 xubnood oo kala ah wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka xildhibaan Cabdulaahi Qaylo iyo Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay ayaa laga furay bangiga Amal ee magaalada Boosaaso. waxaana lagu ogaaday baaris aan sameynay in lacag kor u dhaafaysa $25,000 akoonkaasi ay ku dhacday. adigu soo markaan tagnay oo farraasna ka sameynay baa akoona la furtay marka akoonadii baan isku qornay aniga marka Boosaaso joogay iyo wasiirkan howlaha guud Axmed Bashiir laho iyo aniga baa akoon 3 ina soo warqado wada qornay in akoonada joint oo 2 qof ay saxiix ka u yaraan lacagta u saari kara sidaas oo kale intii aan waday baaritaanka waxaan ku ogaaday inay jiraan akoono kala duwan oo lagu furay magacyada guddiga gurmadka Gardafuo oo dhammaantood lacaga ay ku soo dhaceen. waxaana si khaas ah u maamulay shakhsiyaad ka mid ah guddiga. waxay ahaayeen akoonada nooca loo yaqaano lacagta digital money ay ku soo dhacdo sida sahalka iyo e-dahabka. sida ka muuqata waraaqa xisaabeed aan xaqiijiyay inay yihiin kuwa sax ah oo laga daabacay shirkadaha isticmaala adeega digital money waxay muujinayaan lacagaha oo loo isticmaalay siyaabo kala duwan. 10 maalmood markii guddigu shaqada ay wadeen waa guddiga madaxweyne ku-xigeenku magacaabay mar kale wuxuu magacaabay guddi culama oo ka shaqeynaya isla howlaha gurmadka. ujeedada magacaabidda guddigaas waxaan ogaaday inay ahayd in guddigan ay shaqada wadi waayeen una muuqdeen kuwa gudahooda istuunsan. waxaana wareegtada madaxweyne ku-xigeenka oo ku taariikhaysneed 4 December wareegtada labaad lagu sheegay in guddigan culimada ay ku shaqeynayaan sida howlaha banaantinimo ay qayb uga noqon lahaayeen. guddiga culimada waxaa gudoomiye markan u noqday Sheekh Fuaad Maxamuud Xaaji Nuur oo horey guddiga hore qayb uga ahaa iyadoo ay xubno ka yihiin 5 wadaad oo kale kana tirsan jamaacada al-Ictisaam ee ku xoogan Puntland ayuu ka bilaabay masaajidyada iyo tiifiyada aruurinta gargaarka wadooyinka gobolka Gardafuo. guddigan gaarka waxay aruuriyeen lacag gaaraysa 192,000 sida uu ii sheegay gudoomiyaha guddiga Sheekh Fuaad Flow oo ay hadda gacanta ku hayaan doonayaanna inay ku wareejiyaan dawladda. shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Garowe gaar ahaan aqalka madaxtooyada waxa uu ku cadeeyay hababka lacagahaas iyo akoonada ay fureen. guddiga iyaga culimada anagu waxaan akoon ka furnay 4 bangi, Salaam Banki, Dahabshiil Banki, Amal Banki iyo Daryeel Banki. waxaan furnay akoono kuwa electroniga ah oo ah e-dahab iyo sahal. lacagta ilaa iyo hadda akoonadayada ku dhacday 192,179.86 weeye. lacagaha sidii akoonada ugu jiraan. waxaa jira lacag 2,500 ah oo iyadana qola ku deeqday oo lagu shubay hadeertaan insha Allah taala.
5 bilood oo guddigan ay aamusnaayeen shacabkuna ay naawilayeen in waxqabad la sameeyo isweydiimuhuna ay sii kordhayeen toddobaadkan ayay mar qura soo shaacbaxday is-eedayn iyo tuhumo ku wajahan dhaqaala la lunsaday waxay eedaha badankooda u dhexeeyeen maxamed yuusuf jaamac tigey iyo 2 ka mid a mudanayaasha baarlamaanka puntland oo laga soo doortay gobolka gardafuw ee gargaarka loo aruurinayay dabagalan ku sameeyay ismaandhaafka labada dhinac u dhexeeya ayaan ku ogaaday inuu soo bilowday 2 bilood ka hor guddiga dowladda ee axmed karaash uu magacaabay 24 Novembarna ay noqdeen 2 garab oo kala ah tigey iyo wasiirka howlaha guud oo isku dhinac noqday iyo xildhibaan qaylo iyo muuse oo isku dhinac noqday waxaana labada garab aan qayb ka noqon wasiirka kalluumaysiga iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha oo ka mid ahaa guddiga dowladda ee axmed karaash uu magacaabay waxaan si toos ah ula xiriiray shakhsiyaadka xildhibaanada ah ee cabdulaahi yuusuf iyo muuse saciid oo labaduba ah xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada labadu way ka jawaabeen wicitaankayga iyo fariimahan u diray waxayse ka gaabsadeen inay faahfaahin si faahfaahsan uga hadlaan arrintan waxaan ka soo xiganaya oo ay ii sheegeen inuu dhacay musuqmaasuq iyo waxisdabamarin ay ku eedeeyeen samafila tigey oo ay sheegeen inay caddaymaheeda hayaan waxay sheegeen inuu diiday samafala tigey gebi ahaanba in wax tala la isugu yimaado lana xisaabsho lacagaha guddiga soo gaaray waa sida ay sheegeene aduu lacagii markii intaa dhacay kadib subaxda bashir jiray dalqabanay wixii lahayay tii loo yeeray tigey madaxweyne ku xafiiska soo ka bax tiraan uma fariisanay kaliya aan ku laakiin culimadaas iyo saxaafadaas iyo xildhibaanadaas iyo guddigaas aan kulmayo kadib akoonada baaritaan u raacnay labadii akoon aan haynay midna 10 kuwa tigey wasiirka howlaha guud baa kala baxay oo saxay kii kale shaharkan 23 baa laga baxay oo waliba qaab biila $100 la baxay ma faham akoona kale waxaan nala sheegay nambarra ah lacag ku shubtay waxaan nala sheegay kuwa hormuud oo dhaqaayo ku shubtay lama hayo dad Mareykan joogaan soo wacay 30 baa soo dirnay isagoo sheegaya ma arag waxaan noocaas hadafku wuxuu ahaa orniyahow wuxuu ku dhagan yahay meesha aad ay shaqo ku bilaabay maxamed yuusuf jaamac tigey oo isna ka tirsan guddiga dowladda ee la magacaabay 24 Novembar ahna ruuxa eedu kala dhaxaysta labada xildhibaan kama jawaabin wicitaano iyo xiriir aan la sameeyay balse cod uu leeyahay oo lagu baahiyay qaar ka mid ah gruubyo WhatsApp oo ay leeyihiin jaaliyadaha gobolka gardafuw waxa uu ku cadeeyay in wax kasta is-horistaag ay ku sameeyeen labada xildhibaan ee ka soo jeeda gobolkaas isagoo ku eedeeyay musuqmaasuq iyo waxisdabamarin runtii dhibta ugu badan waxa huriyay oo dhibtan walaaqay waa wiilasha xildhibaanada idinka idiina iyaguna hunguri iyo damac bay raadinayeen khaladka ugu badan iyagaas geystay dawladda Puntland waxay qaban weyday oo dawladda federaalka oo lala xiriiray wax badan ay qaban weyday baan anagu qabanay taasoo cagafyadii dhulka u baahnaa birta cuslayd inaanu keenay qabiil aan ka soo qaadnay talkood iyo ehelkood ay ugu gurmanayaan iyaduna runtii waxa weeye cid hor istaagi kara ma jiro meeshaan Puntland dadku wuxuu ku wada joogaa dawladdaas baa la ilaashanayaa nin shaar qabiil u gashan karaana ma jiro cid nin shaar dawladeed cid u gashan karaana ma jiro nin shaar diimeed cid u gashan karaana ma jiro annaguna qalabkayaga waa ku filanaa inaan difaacano rag baanu nahay rag baa wata qalabkan waxay u wadaan hiil walaal waxay u wadaan tulnimo waxay u wadaan gardafuw inay ugu gurmadaan muddadii koobnayd ee aan waday baaristan waxaan ogaaday in 5tii bishan lacag gaaraysa $10,000 laga saaray mid ka mid ah akoonnada guddiga dowladdu ay maamulayeen oo laga furay xisaabta bangiyada gudaha midkood waxaana lacagta lagu saaray magaca guddiga gurmadka gobolka gardafuw waxaana lacagta laga saaray bangiga amal waxaana akoonka si wada jira u maamulayay oo u asaasay cabdulaahi yuusuf qaylo oo ah xildhibaan baarlamaan axmed bashiir muuse oo ah wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka Puntland iyo maxamed yuusuf jaamac tigey oo isaga magaciisa lagu saaray lacagtan laakiin inuu qaaday iyo in kale waa dood aan wali jawaab iyo caddayn loo helin cabdulaahi qaylo oo ka mid ah cidda wax ka asaastay akoonka ama saxiixayaasha oo aan la hadlay ayaan ka soo xiganayaa in lacagtaas lala baxay isla markii lala baxayna ay fariin u soo dhacday message oo uu la xiriiray kadib wasiirka howlaha guud si uu uga wax weydiiyo balse wuxuu ii sheegay in wasiirku u sheegay inuusan telefoon uga warrami karin ee ay tahay inay isku yimaadaan wixii intaa ka dambeeyana wasiirku aaday magaalada Boosaaso xiriirka aan la sameeyay wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka ima suuragelin inaan ku helo khadka telefoonka waxaan si dib ka eegi doonaa haddii aan ka helno macluumaad ku saabsan arrimahan waxa uu ka og yahay iyo in saxiixiisa lagu saaray lacag dhan $10,000 oo ka mid ah eedaha loo jeedinayo lacagtaas oo aysan caddayn waxa lagu qabtay ilaa iyo xilligan maadaama aysan bilaaban shaqada
wadooyinka gobolka Gardafuo sidoo kale joojinta in qalabka birta culus oo laga keenay gobolka Mudug la geeyo gobolka Gardafuo ee ka timid xagga madaxtooyada Puntland gaar ahaan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka waxaan ku ogaaday inay tahay oo kaliya hubinta iyo in wadajir loo bilaabo shaqada sidaana waxaan ka soo xiganayaa mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka oo u xilsaaran maareynta arrimahan oo ka gaabsanayay sheegidda magacyadooda maadaama aysan idan u haysanin dabagalkeena waxaan ku ogaanay inuu jiro oo daah uusan saarnayn musuqmaasuq iyo istuhun xoog badan oo u dhexeeya guddiga dawladda ee ay ku jiraan 3 ka mid ah golaha wasiirada 2 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada iyo Maxamed Yuusuf Jaamac Tigey oo ah gudoomiye hore sidaas oo kale joojinta qalabka birta culus oo codad la baahiyay qaarkood ay ka muuqanayeen in lagu eedeynayo qaar ka mid ah culimada guddiga ah ee hawshan qaybta ka ahaa ayaa Sheekh Fuaad oo madax u ah waxa uu xaqiijiyay inaysan wax talaabo ah ku lahayn arintaas waxaana uu sheegay marka annaga hadii cid kale ama ay tiraahdo nimankaas isbaaran oo dhigtay waa been waxba kama jiraan sababtoo ma aanan is arkin ma aanan wada shaqayn annagu awood iyo xukun kuma lihin shaqaduna waa socon jirtay abaarihii baan ka soo shaqayn jirnay tigayna wuu shaqayn jiray baldeeraan ka shaqaynay wuu shaqayn jiray wax annaga ishortaag iyo bahalkii iyo annagu cidna ma hor istaagno awoodna uma lihin saldanana uma haysano ciidana uma haysano waxa weeye sida isaga loogu yeeray ba annagana loogu yeeray sidaasaanu meesha ku tagnay sidaasaanu warbixinteeda ku gudbinay waxa isaga iyo xildhibaanada ay wada shaqaynayeen iyo madaxweynaha dhexmaray wax iyaga u gaara weeye inta waa maqlay codad la duubay oo iyo waxaas iyo meelo lagu qorqorayo ixtisaan aan hor istaagay laakiin anagu waxa dan kama gelin kama aanan jawaabin sababtoo ah annana waa ognahay ilaahayna waa ogyahay isna waa ogyahay inaan hor istaagin isna arag shuqulna aan isku lahayn guddiga hanti dhowrka guud ee Puntland uma muuqdaan kuwa ku foogan ama ku baraarugsan si ay wax uga qaban lahaayeen tuhumada taagan xirnaan la sameeyana waxay qaarkood ii cadeeyeen inaysan waxba xog baarisa ku samaynin dhammaan mashaariicda sida samafalka ah loo sameeyo kuwaas oo ay sheegeen hadda inay tuhum gelinayaan tabashooyinka cusub arrimahan soo shacbaxay waa kuwa gebi ahaanba tuhum weyn saari doona gargaarada samafalka iyo isku duubnida dadka Puntland haddii aan su'aalo loo helin jawaabo rasmi ah loo helin su'aalaha ay ka mid yihiin yaa maamulay lacagta xoogga leh ee ka maqan akoonada kala duwan 2 akoon oo mid laga furay bangiga Amal ayaa laga saaray $10,000 in la saaro iyo in magacyada lagu qaaday wali cadayn rasmi ah looma hayo sidaas oo kale lacag kale oo ah lacagta digital money-ga loo yaqaano oo lagu isticmaalay telefoonno kala duwan loo xawilay wali ayana sababaha loo bixiyay waa kuwa calaamad su'aal ay dul taagan tahay toddobaadka soo socda waxa cadaan doona halka dhacdadan ay wajihi doonto ugu dambeynta xaqaduna ay soo bixi doonto